kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin ku saabsan 10 madaxweyne ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Intaanan u gudagelin faahfaahinta, haddii aad nagu cusub tahay subscribe barteena YouTube-ka adigoo heli doona warbixinadii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu hoggaanka dalkaasi hayaa tan sanadkii 2012 waxa uu dhashay 7 Oktoobar sanadkii 1952 waxa uu ku dhashay magaalada St Petersburg. waxa uu hanti ahaan u haystaa $70 bilyan waxa uu kaalinta koowaad kaga jira madaxweynayaasha ugu taajirsan dunida. sanadkii 1999 ilaa 2000 waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka. 2000 ilaa 2008 wuxuu noqday madaxweyne. 2008 ilaa 2012 wuxuu noqday ra'iisul wasaare. waxa 2012 ilaa iminka 2018 uu yahay madaxweynaha dalkaasi Ruushka, waxaana ay muujinaysaa in ka badan 18 sano inuu yahay hoggaanka dalkaasi ugu sareeya. kaalinta labaad waxaa ku jira boqorka dalka Thailand ninka lagu magacaabo Moha Vajiralongkorn. waa boqorka dalka Thailand, waxa uu muddo dheer u maamulaya dalkaas. waa shakhsiga labaad ee ugu taajirsan dunida ee hoggaaminta haya dalalka caalamka. waxa uu haystaa dhaqaale gaaraya $30 bilyan. Xasan Bolkiah waa suldaanka jasiiradda Borneo la yiraahdo. waxa ay ku taalaa koonfur bari Aasiya. waxaa hantidiisa ay gaaraysaa $20 bilyan. waxaa taa ay ka dhigaysaa inuu yahay hoggaamiyaha saddexaad ee ugu hantida badan dunida. Khalifa bin Zayed Al Nahyan waa madaxweynaha Imaaraadka Carabta. waxa uu dhashay 25 Janaayo sanadkii 1948. waxa uu ku dhashay magaalada Al Ain. waxa uu haystaa adduun lacageed gaaraya $18 bilyan. waxay ka dhigan tahay inuu yahay madaxweynaha afraad ama hoggaamiyaha afraad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Maxamed bin Rashid Al Maktoum waa madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi. waxa uu leeyahay shirkado u gaara. wuxuu hanti ahaan u haystaa $4.5 bilyan. waxaana uu ka dhigan yahay inuu yahay hoggaamiyaha shanaad ee ugu lacagta badan dunida. Donald Trump waa madaxweynaha 45aad ee dalka Mareykanka. waxa uu dhashay 14 Juun sanadkii 1946. wuxuu xafiiska Mareykanka la wareegay 20 Janaayo 2017. marka la eego hantidiisa waxay gaaraysaa $3.1 bilyan. waa madaxweynaha lixaad ee ugu taajirsan dunida. Hannes Adams waa hoggaamiyaha dal aad u yar oo ku yaala inta u dhaxaysa dalalka Australia iyo Switzerland. waxa uu dhashay 14 Febraayo sanadkii 1945. waxa uu ku dhashay magaalada Zurich ee dalka Switzerland. wuxuu haystaa adduun lacageed gaaraysa $3 bilyan. waana hoggaamiyaha toddobaad ee ugu taajirsan dunida. Sebastian Pinera waa madaxweynihii hore ee dalka Chile. waa siyaasi, hal abuure, professor, maalgeliye, dhaqaaliyahan iyo ganacsade. wuxuu dhashay 1 Diseembar sanadkii 1949. wuxuu haystaa adduun lacageed gaaraya $2.8 bilyan. waa madaxweynaha sideedaad ee ugu taajirsan dunida. boqor Maxamedka labaad ee dalka Morocco waa boqorka dalka Morocco. waa hoggaamiyaha ganacsiga ee dalka Morocco. mana jirto wax eedayn musuqmaasuq ah oo lagu eedeeyay. wuxuu haystaa lacag gaaraysa $2.5 bilyan. sidaana waxa uu ku yahay hoggaamiyaha sagaalaad ee ugu taajirsan dunida. Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuud waa boqorka dalka Sacuudiga. wuxuu dhashay 22 Diseembar sanadkii 1935. wuxuu ku dhashay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. markii uu dhintay walaalkii wuxuu noqday boqorka dalkaasi. waa 80 sano jir. inta badan hantidiisa waxay kaga timid dhanka shidaalka. waxa uu haystaa $1.32 bilyan. waa hoggaamiyaha tobanaad ee ugu taajirsan dunida. adiga ma noqon kartaa hoggaamiyaha 11aad? waana imisa hantidaada? midkee ayaa ku soo jiitay oo ugu dhaqaalo ama hanti wanaagsan? qaybta hoose noogu reeb aragtidaada. mahadsanid.